waddanka gudihiisa dib ulamaysan fiirin jirin wixii ka soo dhacay Liberia iyo Sierra Leone marka kuwaasaan aniga dib ugu qiimeeyay waxa kale oo mudan inaan xuso runtii kuna sharfo daraasadeedu waxay ka bilaabanaysaa xoogeedaba 69 waxayna ku dhamaanaysaa 91 20 sano 21 sano wax si cilmi uga qoray oo si cilmi u daraaseeyay waxa ka jira professor Daniel Compagnon waa professor Francis ah degan Paris jaamacadda halka wax ka dhiga asaga ku diyaariyay 21 sano PhD waxaana ku qoray Francis kuma qorna af Ingiriis marka waxaan asaga laftirkiisana mudan inaan u mahadnaqo inuu intaan boog markaan bilaabayay inuu ii soo diray PhD-diisa si aan bal u fiiriyo oo uusan u dhicin duplication de inaan ka leexdo jidkii uu qoray PhD-diisana waxa ciwaankeeda la yiraahdaa Ressources politiques régulation autorité et domination personnelle en Somalie le régime de Siyaad Barre marka dawadu jeedaan macnaheedu wuxuu yahay kheyraadka siyaasadeed xukunka iyo isqabsiga shakhsiga ah ee Soomaaliya ka jiray waqtigaas 69 awoodii oo lagu tartamay iyo power structure-kii oo qiimeeyay meesha yaalay xaguu ka dhacay xageen ka burburnay aspectigan ka galnay waa dhinacee anigu de waxaan eega marka state ya qaranka asaga u aabaa umada state waa parent ya waalidu u yahay umada asaga haga wadan burburay hadaad aragtaan iyo wadan horumaray labadaba waxa ama horumariya ama hagaajiya ama hoga tusaaleeya ama ka reeba umada inteeda kale ama ka horumariya waa qaranka meesha yaala iyo dadka xukumaya nooca ay yihiin ya isay u fakaraan ya iyo vision-ka ay leeyihiin iyo meesha u socdaan marka qiimeynteedu marka angalkan ka eega dhinacaas ahaa kama eegin dhaqanka meesha yaala bulshada iyo qabyaalada iyo wax noocaas ah waxaan u arkaynaa oo tahayna ku qiimeynaa wax laga sameyn karo transformation ya laba dhinacba in loo xalin karo dhibaatada ay Soomaali maalin walba ka cabanayso ah qabiil iyo qabyaalad laba dhinac in lagu xalin karo hadii labada mid la hadda wadanka lama tijaabin mid ama inaan ka eegno legal aspect oo sharci ku xalino ama de inaan transformation dadku waxa ku hogaamin lahaana annaga waxaan nahay scholarkuna de wuxuu la mid yahay dhakhtarka isbitaalka joogay haysta CT scan MRI scan ya iyo haysta ultrasound scan oo caloosha eegaya madaxa eegaya social scientist data bulshada ya dhaawaca ku yaala gudaheeda ku yaala dawaad mutacalimiinta inteedii kale iyo madaxda wadanka hogaaminaysa inay arkaan si ummadda ay u hogaamiyaan ya ayadoon la fahmin political structure-kii iyo dhibka meesha yeel de xal loo meeli karo wadanka dooda buu ku doodana weeye labada burburo oo uu dhaco uu dhulka ku dhaco oo qarankaas u baabao dib looguma soo qaabeyn karo looguma soo dhisi karo isla qaabkii uu ku burburay waa in la bedelaa ya formulada iyo framework iyo formatka waa in dhinac kale laga maraa ya taasa u sii weyn marka wuxuu ka kooban yahay bogo 382 bog adiga ilaa 400 page waxaana daabacay madbacadda University Press of America buugaagta academiga marka la daabaco waxa loo gudbiyaa waxay ku xiran tahay hamiga qofka mutacallimku leeyahay ya meesha uu haminayo inuu ku daabaco madbacad yaraato markay ugu badnaato 5 mutacallim oo mawduuca ku takhasusay ay u darayaan markay ugu yaraatana 3 mutacallim ya 5 mutacallim oo takhasus u leh waxa aad ka hadashay ayaa qiimeynaya buug 5taas fariisanaysa waxay haysanayaan muddo 3 bilood 6 bilood 3 ilaa 6 bilood waxay qiimeynayaan waxaan ma yihiin original ma yihiin yani wax cusub oo umada loo gudbin karo mise ma aha haddii marka 5 inta loo diray ay 3 isku raacday in la daabaco waa la daabacaya laba haday diidana waa diideen oo ay yiraahdaan waxaan ma mari karaan wax laga sii faa'iiday ma waxa mahad leh ilaahi ay soo mahad leeyahay dadaalkiina de qofkii uu leeyahay in 5 mutacallim inay soo aqbaleen una arkeen in la isu geeyay intaan dadaali karana dadaalay 3 waxyaabood ay adag tahay in meel la isugu keeno kow cilmi aqli iyo xigmad buug wuxuu ka bilaabanayaa caaqilkii weynaa ummadda Soomaaliyeedna jaclayd wada taqiinay xigmadiisana de maalin walba aan ku maqlayno suuqa hadaad marayso iyo hadaad jidka maraysaba Faarax Maxamed Cali oo loo yaqaan Faarax Gololey oo hadlaya ayuu ka bilaabanayaa oo digaya 59 asoo ka digaya Soomaaliya meesha ay ka kacayso iyo meesha ay u kici doonto asoo sii saadaalinaya oo leh halkaas ay ku dambeyn doontaa sidii ay noqotay de wuxuuna ku soo afjarmayaa Maryam Mursalo heesiis moogta ya oo hadlaysa wadankii burburka ya Soomaaliya adinka isdileele marka ya qarankiini adinka sidaa yeelale ayuu ku afjarmayaa marka de waa aqli iyo cilmi iyo xigmad cusub in la soo wada raadiyo de waana dadaalkan ugu jirna taaso cilmi kaliya raadinteed ma ahane waa dadaalkan ugu jirna de wadankeeni inaan u helno jid cusub iyo dhab cusub iyo dariiq cusub iyo de wanaag intan ka badan in wadan wanaagsan oo Afrika la tartama ka hormarana inaan noqono ogaadana
haddii aan isu wada geyno maskaxdeenna iyo caqligeenna iyo maskaxdeenna iyo muruqeenna intaba inaan Afrika ka dhex noqon karno role model waxa naga qaldan maanta waa hoggaanka hadduu noo saxmo inaan noqonayno ummad horukacda dawayna saadaaliyeen way saadaaliyeen ingiriisku markuu halkan xukumayay xamar 41 ilaa 50 markuu wadanka wada qabsaday warligley ninkii oobiga ka qorayay oo ingiriiska ahaa noodkii uu qoray yaalla uu leeyahay wuxuu la kulmayaa subax walba dad uu kala gar qaadayo saldhigga booliska warligley waa 1941 waa la yaaban yahay hadalkooda doodooda say u kala gar qaadanayso markuu saa u eego wuxuu yiri kuwaan hadda iyo hor fadhiyoon garta u kala qaadayo waa noodkiisii uu qoray asagu kuwaan iyo hor fadhiya hadda marka aan dirsay caqligooda iyo garashadooda iyo dadnimadooda waa hubaa maalintuu soo gaara kacaanka warshaduhu inay Afrika ayaga hor kici doonaan oo ay hogaamin doonaan inay Afrika ka noqon doonaan hormuud maxaan hor taagan marka inaan meeshii ay saadaaliyeen deewaana dirseen ayagu waan si fiican ay noo darsi jireen oo ummad ma xukumi kartid haddii aadan fahmin dhaqankeedii taariikhdeedii sociologically politically economically psychologically inta hadaadan fahmin ma xukumi kartid dadna fahmay ahaayeen maxaa naga hor taagan buugaa macnaynaya jidka aan u mar lahayn iyo meeshaan ka qaban lahayn marka intaasaan kusoo koobi lahaa overall ka kale wixii su'aalahana waa xabsa Ingiriis aad baa u mahadsan tahay waxaan ku raacsanahay saaxiibkay Cabdikariin Cali oo Cali Kaarsha haddii aanan annaga aqoonteen aan lagu qorin luqado khalaad ah waxa inoo imaan doona dad cadaan study naga sameeya warbixin qaldan naga dhiiba waxaan idinku wada dhiirigelinayaa inay idinka soo dhex baxaan qorayaal cilmi baarayaal intiina hadda ii muuqata dhalinyaro u badan tihiin maxamed haddaan adiga dib kuugu soo noqdo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo taariikhdaada hore waxaad ahayd journalist maantay waxaad qortay book maxaa kugu dhaliyay inaad qoraan noqoto maxayse ahaayeen caqabadihii kuugu weynaa ee aad kala kulantay waqtigii aad qoraysay buugga sidoo kale waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada maanta meeshan joogto waxaa tahay PhD student jaamacadaha ugu waaweyn dalka UK Oxford University aadan kuugu hambalyeynaya iyo maxay yihiin qorshahaaga markaad PhD-ga soo dhamaysid ma waxaa leedahay qorshe ah inaad dalkii soo noqotid aqoontaada u soo celisid ma waxaa leedahay inaad sii tababartid qorayaal kale iyo cilmi baarisyaal kale ku soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim waa hilmaamay su'aashii koowaad ay weydiisay ku saabsanay taariikhdeedii waxaan bilaabay anoo yar inaan wax qoro qoraalkuna hadda markaad weydiiso Cabdiladiif Ciga iyo qorayaasha novelada qoray degan New York aad weydiiso tiraado iyo London meesha tagtaba qoraa xaguu ka bilowdaa qoraagu wuxuu ku soo bilowdaa 2 jir 3 jir 4 jir 5 jir waa waanadayda iyo dardaarankayga ilmuhu markay yar yihiin in ay wax aqriyaan oo journalist yani waxaan ka wadaa wargeysiyo jaraa'idka soo baxo xaqiiqa times ayaan wada hadda halkan uu ka soo baxaa ilmaha in loo dhiibo markay yar yihiin journalkaas inay iska fiiriyaan ma aha inay fahmayaan waxa ku qoran laakiin inay aqriyaan oo ay saa u arkaan ayaa wuxuu siiyaa wax la yiraahdo afka qalaad inspiration iyo motivation asaa ku socon doona wuu la korayaa journaladaas uu la korayaa waagaan yarayn aniga abahay wuxuu ahaa ilaahay ha u raxmado sanadka hore uu dhintay nin dhakhtar wax ku bartay Poland iyo Mareykan wuxuu ahaa Fulbright scholar 86 wuxuu deganaa Davis California wuxuu guriga keeni jiray oo arki jiray journalkan weyn oo hadda Mareykan ka soo baxay la yiraahdo People waxa aan aqrin jirnay anagoo yar yar oo caruurana waxay ahayd ma aanan fahmayn mana aqoon iyo wax si aan u fahmileen cilmi ahaan laakiin sawiradaas iyo kabshanadaas meesha ku qoran ayaanu arki jirnay oo qiimeyn jirnay tiibaan ku kornay 9 jirkaygii waxaan bilaabay inaan warqad u qoro jaraa'idka inaan iska aqristo joornaaladii laakiin aan warqad qoro 6 jir markaan ahayna af Ingiriisku na baray 14 markaan soo gaarna anigiyaaba bilaabay inaan wax qoro oo joornaalka qaran ayaan ka noqday staff aan wax qoro dibkii ugu weynaana waxay ahayd inaysan aaminsanayn dadkii meesha joogay in waxaan aan aniga qoray inay igu lahaayeen ma awoogaa qoray ma aabbaha ku soo dhiibay marka dambe iga yeeli diideen inaan raado marka awoogaa soo dhiibay ma helinaan ka wadaa dhiirigelintaan u baahnaa inay hore aan u sii socdo laakiin macnaheedu maaha taas inay kaa reebayso ogaadana haddaad jabto macnaheedu maaha inaad niyo jabto hore aad u socon kartaa
adaa iswadi kara ama si kaleba isu sii wad marka waxaan soo maray waxay ahayd maalinba inaan qoraa ku soo dayday maalinba nin inaan fiirsanayay oon lahaa ninkaa ka daba tag bal ninkaa ka daba tag waxaa ka mid ahaa dee cisho dhaweyto dhowr sano ka hor 10 sano Farid Zakaria Newsweek wax ku qoraa waa yaqaan Cabdiladiif Ciga dad badan ka daba tag markaan ka daba tagana ka sii daba tag soco 3 sano ka hor waxaan lahaa ka daba tag nin la yiraahdo Kedrick Barnes si fiican buu wax u qoraa PhD buu wuxuu ka qaatay Cambridge jaamacadda Cambridge hadda wuxuu joogaa Nairobi akademiyadu ka yara leexday director uu noqday International Crisis Group nin dhalinyaro aad u yar oo Ingiriis weeye saaxiibkay ah 3 sano ka hor dadkan u sheegi jiray waxaan dhihi jiray Kedrick Barnes oo kale hadaan gaari lahaa oo waxba ii suurtagal lahaa wax weyn aan noqon lahaa ya wuxuu ka qoray guba gabayada guba ayuu PhD ku sameeyay ya waad xasuusataan gabayada guba ee la sumariyay markii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ya xilligiisii uu jabay ya gabayadii dhacay oo la isugu jawaabay ceelashii dhulka hawd ya todobada haradigeed ya Soomaalida isku qabsato 6 qabiil ay ku dagaalamayso ceelashaas in la cabo todobada biyood oo haradigeed ku yaal ya heesta Xasan Aadan Samatara ka dhageysateen ya hawdka iga muuqdo ya haradigeed iyo hawd iga muuqdo marka arimahaas uu ka qoray PhD waa ka daba tagay hadda de waa isla taagana aniga asaga Nairobi aan ku sheekaysanayna saddex sano ka bacdi yaa haddana u soconaa inaan ka daba tagno Maxamed Mamdani waa ciga supervisorkiis Columbia University ya Maxamed Mamdani muxuu Mamdani qatar ku yahay de Soomaaliya kaliya ma eego Mamdani wuxuu eegaa Afrika oo dhan ayuu hal mar wuxuu saa u eegaa mugta iyadoo dhan min Cameroon min ya Zanzibar meel walba u eegaa Soomaaliya kaliya iyo wadan kaliya ma eego asaga iyo Ajil Mbebe labadoodan marka hadda isburinayna goormay gaari doontaa weey marka waxaan qiyaastii 5 sano kadib ya inaan soo qaban doonaa aniga ya haddii ilaahay cimri nagu gaarsiiyo marka dee waa dadaalkaas inaad beegsato meel inaad wax xigsato Mamdani haddaa ka daba tagto dee sii soco marka Mamdani haddaa ka baxdo dee waxaad galaysaa kuwii global empire-ko dhan eegayay marka adduunkoo dhan saa usoo fiirinayay microscope ku fiirinayay marka taariikhdaydu meeshaas ka soo bilaabatay newspaperadaas wargeysadaas inaan qoro dee markaan Europe tagayna waxaan tagay Belgium isla markiina sanad baan ku jiray foundation oo jaamacadda la ii diyaariyay 1 sano kadib waxaan galay Catholic University of Leuven waxaan dhigtay falsafada reer galbeedka Western philosophy qaasatan waxaan dissertation ka qoray oo darisnay contemporary philosophy waxaan aad u daraasayay Descartes philosopherka weynaa Faransiiska ahaa iyo waxaan daraasayay Thomas Hobbes waliba qalbi gooni uu nagu dhaxleeyahay waxay tahay aninkii darso ahaa wadan burburay iyo ummad burburtay ya dib u qaabeynteed si dib loogu soo qaabeeyaa asagaanba dissertation-kaygu ku dheeraaday markaan dhameeyay 3 sano waan guuray Belgium kan ka guuray waxaan aaday Canada iyo Mareykan meelaha inaan degaan doonayay muddaan wareegay muddo markaan wareegayna oo aan eegay bal xageed degtaa Soomaali waxaan nahay international nomad bugal la jiro inaan nahay dadka iska socdaale socda marba meel ya daaqsin ya dul cagaaran raadiya bal meel ay baroosinka dhigtaan markii dambe London aan dhigay baroosinki halkaasaan ka bilaabay postgraduate diploma in media law diplomada sare ee sharciga qaanuunka saxaafadda kadibna waxaan sii aaday London Metropolitan University halkaasoo 2 sano part time ku sameeyay masters in organization and community development horumarka bulshada iyo dhismaha ururada dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn 2002 ayaan 12 aan dhameeyay 2 sano part time ee anoo shaqaynaya aan waday kadibna sanad kale aan galay master kale jaamacadda Goldsmith University of London jaamacadaha waaweyn kamid ah waxaan diyaariyay MA in anthropology and history ya cilmiga lagu darso dhaqamada iyo caadooyinka iyo traditionka iyo taariikhda masterkayga hore dissertation-ka waxaan ka qoray haweenka Soomaalida ya doorka ay ku leeyihiin horumarka wadanka dadka aan wareystay waxaa kamid ahaa Marwo Caasha Xaaji Cilmi oo xafsad la dhalatay oo London maraysay ma awoodin inaan soo baxo oo wadanka imaado arday hadda tahay ya dhaqaalahaada mar walba xadidan marka masterkaygaas koobaad dissertation-kaygu wuxuu noqday distinction kaalinta koobaad ku soo baxay Goldsmith midkaan dambe waxaan ka qoray culimada Soomaalidu doorka ay ku leeyihiin qaabeynta ummadooda qaasatan culimada qaadiriyada asagana wuxuu noqday ilaahay xamdigii distinction that's why marka jaamacad weyn aan u apply garay inaan PhD ka qaato ya mar haddaad grade fiican ku baxday jaamacadihii waaweynaa marka waxa lagu galaa waa grade ya ogaada Harvard Cambridge Oxford London School of Economics waxa lagu aadaa waxay qiimeynayaan grade ya grade sare iyo imtixaan ay ka qaadaan qof grade sare ku soo baxay waaba imtixaanka waa u diyaarsan yahay inuu maro marka waxaan apply gareeyay PhD inaan aado
anoo labadeydii master watay iyo waxaygii kale Oxford Cambridge iyo London School of Economics ya waa saddexda jaamacadood isku xiga Oxford u horeysa Cambridge LSE laakiin aniga waxaan jeclaa inaan aado LSE London School of Economics jaamacad fiican oo weyn oo aad wanaagsan laakiin waxa ay ogolaaday oo aqbalay Cambridge iyo Oxford ya marka sidaasaan ku xusho Oxford 2 sanaan hadda waday PhD-deydii 2 sanaa dhiman labadaas sano la soo dhaaf waxaan aruuriyay wixii data ahaa wixii aan qori lahaa ayaan soo aruuriyay waraysiyadii primaryadii dokumentiyadii hadda waxaan galayaa October inaan garaaco marka inaan computerka geliyo datadeydii ya ilaa sanaday socon doontaa ama 2 sano dheh waa maxay mawduucigu kan waa state collapse waa qaran burburay bogo wuxuu la socdaa oo lagu dhigi doonaa koorsooyinka qaramada burburay mid labaad oo sanadka soo socda soo bixi doona waa jira oo ku xiriirsan oo state failure ah yani qaramada qaabkay u fashilmaan iyo si looga baxo laakiin PhD-deedu waa ka duwan tahay waa state formation qaran see loo dhisaa ya qaran see dib loogu dhisaa waxaan rajaynayaa markay dheeraato way dheeraan doontaa datadan aruuriyaa fara badan inay ka soo dhaxbixi doonto 3 buug oo cilmi ah ya kow inaan dib u fiiriyo ma jiro oo dib looma fiirin pre-colonial Somali politics ay siyaasadii iyo dhaqankii iyo dhaqaalihii wadankeena soo ahaa gumaysiga ka hor iyo mid ilaa gumaysiga ah iyo mid hal mid oo kaligii ah 69 lixdankii ilaa 69 waxaan rajaynayaa kaas inuu indha cusub ya ka tuso Soomaaliya ajnabiga daraasadeeyay Soomaaliya iyo daraasaadka Afrika oo dhan maxuu ciwaankiisu noqon doonaa saan ku tala jiro Soomaaliya as the most democratic state in Africa Soomaaliya oo ah wadanka ugu dimuqraadiyaysan qaaradda Afrika 69 ayaga laftirkooda ay yaabi doona moogta ila buugaagta la qoray 25 sano Soomaaliya haddaad fiiris 95% ama ka sii badanba waxa laga qoray state collapse ya marnaba laga ma qoray wax fiican wadanka laga ma sheegin waxaan u malayn doonaa de buugaag badan oo academiga inay dib u fiirin doonaan xawaaladaha kale moogta meelaha aan ka xooganahay kamid yihiin ya xawaala system telecommunicationada kale kambaniyada cusub ee dhasho kale waa wax social transformation cusub oo socda marka maxaa la kulantay oo caqabadaha waa soo sheegay maxaa ku qorshaha waxa ay qorshaha inaan cilmigayga gaarsiiyo ummadayda waxaan ka soo bilaabay Djibouti jaamacadda Djibouti waa tagay waxaan tagay jaamacadda Addis Ababa waxaan tagay tan Dirdhabe waxaan tagay tan Jigjiga waxaan tagay tan Harar waxay i weydiisteen inaan jaamacad la haabeeyo because culimadii joogto Soomaali asalkoodu yahay laakiin aan Soomaali ku hadlayn oon isfahanay waxaan kaloo tagay hadda ka yimid hadda daraad aan ka socdaa jaamacadda Hargeysa oo aan hal bil iyo bar macallin ka soo ahaa Institute of Conflict Studies ya macadka nabadda iyo khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa wax ka soo habeeyay hadda waxaan casharasiiyay oo aan imtixaanay oo aan dissertationadoodan examine gareeyay koorsooyin postgraduate oo ardayda masterka diyaaris ya ayaan siiyay oon kaga warramay cilmi ahaan iyo buugaag ahaanna u geeyay iyo researchadii u dambeeyay la daabacayna aan uga soo bixiyay Oxford University conflict ya African conflict iyo African politics ya peace building iyo state building annagoo isla fiirina xataa Soomaaliya iyo Somaliland wada hadaladooda iyo sida la soo raaci karo waxa soo dhan ayaan ka doodnay markii dambana waxaan soo tababaray hadda agaasimayaasha guud ee dawladda Somaliland ya madaxda sare ee dawladda ayaan tababaray on state building ya dibudhiska qaranka ayaga waa ogtihiin oo peace building kooda waa hagaagay state building koodana waa hagaagay marka waxay marayaan process ah state developmental state ya meesha qaran ka hormar lahaa ay marayaan marka meeshaas ay ka kacayaan xagee u kacayaan in laftirkooda indha cusub aan u tuso cilmi baarista laga sameeyo la daabacayna aan la qaybsado oo u geeyay ahayd iyo wixii dokumenti ay wadanka laga daabacay marka qorshaygu wuxuu yahay inaan markaan hadda 2 sano dhameeyo inaan marka hore haddana waa noqdayba research associate King's College jaamacadda London ya macallinimo meesha laga bilaabo inaan macallinimo ku bilaabo wadanka keena wixii cilmi aan ku kordhin karo buugaag ha noqoto daraasad ha noqoto tababar ha noqoto inaan wadankayga ka warqabo iyo dadkayga